kusoo dhawaada wakaalada barnaamij.com oo inay haysa dagaalada iyo dilka lala beegsanayo waxgaradka iyo wadaadada iyo culimadii magaalada Laascaanood taas oo ay sabab tahay xukuumadda Masuuliyiinta Cabdi intii uu yimid waxa la dilay oo magaalada Laascaanood dil qaarajin toogasha lagu lala beegsanaya dadkii culimadii iyo dadkii Barma-gayda ahayd Qurba jooga Beesha Dhulbahante ee ka soo jeeda gobolka Laascaanood gaar ahaan magaalada ee gobolka uu yahay magaalada madaxdiisa ay tahay Laascaanood ee Sool ayaa waxa ay ka hadleen in ay gabi ahaanba inamada yar ee Hargeysa jooga ay tahay mid halis ku ah ammaanka xaaladda ee maalin walba la dilayo dalka haddaba arka ka daawo qurba joogi oo qeylinaya laakiinse waxa marka ugu horeysa in xasuusin doona heestani waa hees kamid ah oo qaadayo فنانكي وينا الله نحرسيه محمد موجي أو أحيلك دجالة الإسلام أو مصبيحنا كمدها رور وورسكي أبد دجالة قبل ياشي دجالة magaalada Laascaanood halaq mareenka noqotay ee wax garadka lagu leynayo aqoonyahanka lagu leynayo nin xoolo leh aan tagi karin ninkii guri uga dhistayna aan tagi karin ma garan weydeen is ilaaliya ma garan weydeen biliis samaysta idinka dhashay ma waxaad isku aaminteen wiil galbeed ka yimid inuu idin ilaaliyo no ma soconayso haddii aydan idinku ismaamulin oo aydan gudihiina iska maamulin oo nabadiina ilaashan cid kalena ilaalin mayso Masuuliyiinta jaaliyadda qaatumo ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kulan ay ku yeesheen xarunta jaaliyadda ee magaalada Minneapolis ayaa waxa ay kaga hadleen sida ay ugu xun yihiin dilalka qorshaysan ee loo geysanayo waxgaradka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaasi oo laga soo sheegayo in maalmihii la soo dhaafay lagu dilay dad kala duwan oo ugu dambeeyay Sheekh Maxamed Cabdi Timir oo caan ka ahaa magaaladaasi jaaliyadda ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Laascaanood ugu baaqay in la ilaaliyo midnimada isla markaana laga waantoobo falalka amni darada u keeni kara magaalada Laascaanood aniga waa Maxamed Cumar Ciise kuna hadlaya magaca jaaliyadda Khaatimo ee Minnesota waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ehlada uu ka geeriyooday Maxamed Cabdi Timir waxaan leenahay Allah ku naxariisto eelkaagana samir iimaan Allah idinka siiyo waxaan kaloo aad ugu boorinayaa aniga magacayga waa Saalax Xasan Xaaj Faarax Suldaan Xaqoodirir kana mid ah membarka jaaliyadda Khaatimo ee Minneapolis markii ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda reer Khaatimo meel kasta ay joogto marlabaadka waxaan si gaar ah tacsi ugu dirayaa geerida naxdinta lahayd
ee ku timi reer cabditimir oo dhammaantay inagu wada timi nin la jecel yahay buu ahaa ilaahay kitaabkiisa midigta ha uga dhiibo iyo dhammaanba ummadda reer khaatumo inuu samir iimaan hay naga siiyo haddaan intaa ka gudbo waxaan la hadlayaa walaalahayga reer khaatumo haddii aydan idinku ismaamulin oo aydan gudihiina iska maamulin oo nabadiina ilaashan cid kalena ilaalin mayso maalin walbana mid meedun baad sii sidaysaa oo taliya inta nool iska qabta dadka maalin walba barma-gaydadiina dilaya gowracaya laynaya hortiina ku dilaya haddii aydan iska qaban sida maalinba mid loo qaadayo ee maalinba mid loo cunayo laascaanood gelgelin bay noqonaysaa nina ku waari maayo nina joogi maayo nin walba nabadiisa iyo aayihiisa isaga inuu lookalkiisa ka shaqaysta ayaa fiican oo ilaashado wiilaan laascaanood u dhalinina ammaankiina ma sugaya haddaydan idinku sugin wiil meel kale ka yimina ammaankiina ma sugi kara haddaydan idinku sugin noloshu waxay ku jirtaa intiina nool bay dan u tahay nolosha ilaashada oo nabadgelyada ilaashada oo soo qabta kii wax dilay mid badan oo nool baa ku badbaadayay haddaan la qaban ka wax dilay kuwa noolina waa mayd kuwa ka dambeeyana waa mayd laakiin waxaad dhammaantiin ku badbaadaysaan in shakhsiga dilka gacanta geystay la qabto oo ciqaabka la mariyo oo sharciga lala tiigsado ummadda reer khaatumo ama ummadda soomaaliyeed ee deegaankaa ku nool gebi ahaanteenba dhibaato aanan inagu keensan inama hayso mana jirto dhibaatadaas oo ah kow marka tanoo kala dhacdo waxaan haddii aynu noqon lahayn kuwii qaban lahaa ee odhan lahaa waa taas kaasaa sameeyey hala qabtaa laga hortago aynu qarino inagoo uurka iyo isha iyo afkaba isu wada dabayna inaga gudaheenna waxaan ugu kala maqana aanay jirin waxaan u malaynayaa inaynaan badbaadayn waxaan halkan doonaya inaan ka daba tago oo ka taageero saaka subaxnimadii markii la aasayey maxamed magaalada laascaanood khudbaddii ay jeediyeen ama labadii khudbadood ee sheekh cabdinaasir iyo boqor khadar cali jaamac ay meesha ka jeediyeen ilaahay ka baqa cid damaanad qaadaysaa ma jirto si kasta oo maamulku sheeg ka jira meesha uu damco inuu wax uga qabto ama wuxuu hagaajo xitaa haddii aanu isagu qeyb ka ahayn haddaanan adigu la shaqaynin ama tusin ama odhan waa kan ama sidaa waxa ma ogaan karo waxna ma qaban karo laanna dhabtu waxaa weeye dadka deegaanka ee dhaladka ee asligii waxay samaystaan unbay ku meel maraan ilaahayda abuurtay ka baqa uurkiina iyo afkiina mideeya dib isugu noqda waxaana way soo noqnoqotay way soo noqnoqotay odhan maysaan shabaab baa nalaysay odhan maysaan cid kalaa nalaysay odhan maysaan daily daraad bay ahayd markii la lahaa labaa laga helay koneyaashii magaalada laba meyda shalay maa daraad bay ahayd maalin walba mid baa la sii sidaa waa haldoorkii dadka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid maxamed cabditimir dhammaan eheliyadii uu ka geeriyooday caruurtiisa walaaladii waalidkii dhammaan ehelkii uu ka geeriyooday reer cali shire baan tacsi u diraynaa waxaa aniga yaab ila noqotay iyo ama kaag dad dhan oo uuman oo ilaahay intuu uumay meel ku uumay ee garan la qofka wax dilay laascaanood waxa ka dhigay halaq mareenka ee loo arki waayay nin afduuban oo tuutaysan u ahaa tuutaa xaggee laga soo xirtay yaa soo xiray maanta way caddahay qof walboo mutacallina iyo qof kastoo ganacsada ah waxa la rabaa magaalada in laga suuliyo saddexda arrimood oo looga suulinayana way cadda ganacsiga koonfur ninka yimi inuu ninka reer laascaanood wax ku darsado uu ninkaa wada maaha isagii ma wadi karo waxaa lagu abuurayaa dadaan magaaladii u dhalan oo lagu baarqabinayaa oon ayaga far lagu saarin oo lagu dilin oo waxyeelo loogu dhimin hanaga baxaan markay shacabkii dhahaanna
culumaa udiin kaalayaysan bixin waxa ay ku qabaan anigu garan maayo haddaba magaaladan Laascaanood halaq mareenka noqotay ee wax garadka lagu laynayo aqoonyahanka lagu laynayo nin xoolo leh aan tagi karin ninkii guri uga dhistayna aan tagi karin ma garan weydeen is ilaaliya ma garan weydeen biliis samaysta idinka dhashay ma waxaad isku aaminteen wiil galbeed ka yimid inuu idin ilaaliyo no ma soconayso ma shaqaynayso ilaa hal doorkiina way dhameeyaanna idin ma ilaalin karaan ilaah baa wax ilaaliya kalsooni idinka barkaad isku qabtaan oo caloosha isu furtaan oo kiina wax dila aad shariicada islaamka marisaan oo tiirka keentaan wad isu talin kartaan الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعيق حابة قاسبا ليدا هذا ورنما يهو انتا يسو تكتان او إلهي كبغدان او إيمانك اسكو جلستان او قرآن أخرستان وافلنتيني قرآن أخرستان او إلهي نقطان او كتابك ألا كن نقطان نما يهو بالوحان إذن كسئة وربال ديب السقون نقطة أنا بوحان أوران لها ديب السقون نقطة oo maxaan ku raahdaa de kulay adowba hareeraha idinka taagan